waxaa jiraan waxyaabo badan oo udgoon ku dari kara guurka ama xiriirka kuwaasoo gabar yahay ka saacidaya in ninkaaga aad ku jeclaado. waxyaabaha ayaa waxaa ka mid ah in ninkaaga aad u samayso waxyaabo kaa yaabin doona ama uusan filanayn. si aad u ogaato sida ay waxyaabahan muhiim u yihiin waxaad u baahan tahay in aad dhegaysato warbixintan. inan yahay kow u adeeg isagoo sariirta jiifo oo cuntada ugu gey sariirta. laba ka caawi ama ka jar cidiyaha waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu wanaagsan ee aad u samayn karto ninkaaga. saddex isagoo aanan filanan u wate casho waa mid ka mid ah waxyaabaha isku soo dhoweeya lamaanaha kaana caawin kara inaad si fudud u degto qalbigiisa. afar u shid ciyaaraha uu jecel yahay adigana la daawo xitaa haddii aadan ka helin. shan u diyaari dharka shaqada ama labiska uu doonayo inuu qaato xilliga uu shaqada ama meel aadayo. lix guriga ugu dhaaf fariimo jecel oo macaan sidoo kale qoraal ah ayaad maalin kasta ugu diri kartaa fariimo jecel oo macaan. toddoba u diyaari cunnada uu ugu jecel yahay cuntooyinka oo si wanaagsan loo diyaariya isagoo aanan filanin maalintaas. sideed waxa uu ka yimaaday shaqada isagoo daalan ama walaac uu hayo marka maxaa ka wanaagsan inaad jirka u duugtid ama u daliigtid si uu raaxo u dareemo daalka iyo walaacana ay uga baaba'aan. waxaa hubaal ah in jacaylkii uu kuu qabay ka badan uu kuu qaadayo. sagaal ugu qubey ammaan uusan filayn ku ammaan wanaagiisa iyo sida uu kuu cafiyo marka aad qalad samayso ama caradaada ay kaa tambadiso. toban ku dhiirageli dadaalkiisa iyo sida uu howlkar u yahay gadaal ka riix marka uu niyad jabsan yahay adigoo u sheegaya in guushiisa ay dhowdahay.